بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كلمة وحانو قبنا يا ولا لها مسلمين تأميلي جوغان با إلهي وحانو قبر يا إن ونبت قليو وحانونا ذا مصائب كاوريغيا ودمان inaga nabadgeliyaan ilaahay inoo weydiinaya jalla jalaaluhu. baaqaygan wuxuu ku saabsan yahay xanuunkan maanta adduunku uu ma aragtay ka yaabay ama aad iyo aad moodo inuu u yahay mid argagixisa yani laga qaaday. maxaan kaga bixi karaa, maxaan kaga badbaadi karaa? qur'aanka kariimka iyo sunnada nabiguba waa ina tilmaamayaan markay waxaan oo kala dhacaan maxaa lagaga baxaa, maxaase keenay. waxa keenay wuxuu yahay waa macaasi. ilaahay baa la caasiyey jalla jalaaluhu. wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir. ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wax kastoo idinku dhaca waa waxaad la timaadeen, inta badanna wuu idinka dhaafaya jalla jalaaluhu. ilaahay idinma qabanayo. marka alle wuxuu leeyahay walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun. waxaan dhadhansiinaynaa dhibaatada adduunka ayaan wax ka tusaynaa si ay dhibaatada aakharo uga badbaadaan oo ilaah ugu toobad keenaan jalla jalaaluhu. walaalayaal maxaa lagaga baxay haddaan garanay waxa keenaya inay dunuubta iyo macaasi, maxaa lagaga baxaya? ilaahay oo loo noqdo, fafiruu ila allah. meel kaloo loo cararaya male. baaqayagu marka wuxuu yahay aan caalamul islaami iyo walaalaha soomaaliyeed afkan garanaya aan ku hadlayo aan u jeedinayo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala aan u noqono, oon toobad keenno, oon istikfaarta iyo towbadda aan badinno oo aan ilaahay u cararo. wax kale ma jiraan. argagaxana ha la iska daayo. يعني إلها كاني وإن مغنقله حنون كان إلهي با كاني إلهي وأنا نقولنا إلهي وأنا أفقرنه عالم كي ذنوب بدن بعد عضي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال لي إلهي سبحانه وتعالى بلايا أن كوجار نقول إن عدي لتمد كبغضة دون بلا وذا ساري. وحان ربنا مركا استغفار يا توبة يا صدقات. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كداوية balaayada ayay sadaqadu difaacdaa, mariidka ayay dawaysaa, cimriga ayay barakaysaa, cuudkay badisaa, arsaaqaday badisaa. marka baaqaya wuxuu yahay waa xilligan oo kale ilaahay loo noqon lahaa jalla jalaaluhu. ma aha xilligii raashin iyo lagu mashquul lahaa bakhaarada in la faaruqiyo oo guryaha raashimo la dhigto. laakiin waxa weeye ka hortaa inagoo asbaabta qaadanayna ka hor waa inaan ilaahay u noqono jalla jalaaluhu, waa inaan toobad keenna. asbaabta waan qaadanayna. waxa laala waxay atibadu sheegeen waa in la qaato oo ma aragtay taxadar ah. khudil asbaab. adduunyadan waa in asbaabta la qaato. laakiin asbaabta maxaa ugu horeeya? asbaabta waxaa ugu horeeya diinteennu ay noo sheegtay ah balaayada masaa'ibka dhala, dunuubta dhasha. kadib waa in ilaahay loo noqdo. waxa lagaga baxayo ko waxa ah in sanka la xidho oo faraha ma aragtay la maydho. waxaa ka horeeya in ilaahigii keenay loo noqdo, dunuubtana laga baxo, madaalimtana la celiyo oo dadku waxbay kala tirsanayaan laysu celiyo oo qof walba uu ilaahay xaggiisa ku tooso. tabalaayada lagu rafcinayo koobaad ee asbaabta la qaadanayo, aakhirana lagu badbaadayo, ilaahayna lagu afgaranayo. waa taas. wixii kale atibadu ay sheegaan waa taabic weeye. marka sadaqada oo kale walaalayaal waa muhiim jiddan, waa muhiim jiddan. maanta waxaa socoto culimadeennii oo dhan ka hadleen jaamacati alqur'aani alcadiim, kitaabkii ilaah oo mashruuciisii uu socdo. waxaad ku bixisa jaamacaddaas dhinac waa kaa sadaqad. sadaqaduna balaayaday celisaa, cimrigay dheeraysaa oo ilaahay uu ku barakeeyaa, cuudka alla ku badiyaa oo arsaaqada ilaahay ku ballaariyaa, amnigu ilaahay ku sugaa jalla jalaaluhu, mariidka alla ku daweeyaa, xaajaadka alla ku sakhiraa. sadaqadu waxaasoo dhan aakhira marka la tagana cadaabka nabigu wuxuu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam inay gidaar u noqonayso oo qofkuusan cadaabkaba arkayno sadaqadu ay iskaga dhigayso. sadaqada marka jaamacadda maanta wixii lagu bixiyo waqfiga ee ummaddu ay leedahay waa dhinac waa ka sadaqa, dhinacna waa
waa diintii oo la ilaaliyey waa ummadii soo socotay jiilasha joogay maanta wax baranay quraanka inoo baranay iyo kuwa iman doono loo diyaariyay mustaqbal waad ogtiin wadankeenu jaamacad quraan ma leh ardaygu madrasada markuu ka baxo yaa ugu dambeynaysa quraan ama dib u noqon oo suuqu iska gali ama takhasus kale raadsanaya marka maanta waa fursad lagaga bixi karo balaayada maanta adduunka lagaga dhawaaqay inaynu jaamacada u wada kacno oo qof walba uu sadaqad naftiisa iyo waalidkii iyo awlaadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba inuu ugu daro ayaan ku baaqaya balaayada ilaahay waa inaga xijaabaya quraanka kariimka ah oo jaamacad loo sameeyay waqfi ah oo ummadeeni oo culimadeeni oo dhan aad aragteen kiliibadoodii oo ma aragtay hawsha la soo dhaweeyo oo loo kaco waxay keeni wax aan yani aan la filanaynin oo khayr ah ay keeni oo la waaraya qof kasto jaamacada wax ka barta ajrigiisa ala iskale marka wax ku darsato khayrkana waxba lama yaraysto la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an shayga waxaad awoodo bal raba inaad ku darso baaqaygu marka wuxuu yahay qof kasto kiliibka arka waxaan ka codsanaynaa in horta uu ka qayb qaato dajinta ummadiisa ilaahay wax soo dhaafay ma jiro xanuunku ilaahay ma soo dhaafay maamulkiisu ku jira ilaahay baa wax walba maamula oo tan ka taliyay tu walbaba ilaahay ha lagu kalsoonaado oo ilaahay aan tala saarano ilaahay xaqiisa waxa ku filan sida diinteenu inoo sheegtay in si niyad ah loo toobad keeno ma aragtay ilaahayna dambi dhaaf laga weydiisto laakiin xaq bila aadam markuu yahay uu culus yahay ذنوب بدن ولا كلا جلي مظالم بدن بالله كلا قاضي مشاكل بدن بميل كستا ويسومالي شوكتا كلا هيستا وعرب له وحكشيجا وجعن كهذا له ومال له أي إنه هو ذا كلام مكان وهاي تلاذا يدي أن استيحذا يتطهي وفرصة أن أوقف إذا سنية وإلهي نطو إن جرب حنون نذر وحن ودن مشاكل كنوع عن وكلام ركيمادان وحيالها لقى بحقه إن ليس سامح إن ليس سامح قفك وحلول هانا ويسكت ضيو عدي وحكا جالي إنه راتسده سيء توبدي سوء أنصحه أو استغفارتي سوء وهجاكته مظالم تمركي اللي يسوء عليه وحي لك لهايو يا إلهنا الله توبت كينا يا جل جلاله وحي الله فرديو أو وحي نقول لك لما قيهين توبت كان وحباك خلدن مركا وحن أوران لها دتك qof walow mana wixii adig kugu maqan isku day cidii aad ka haysay inaad ma aragtay ka raali geliso ama aad wixii u celiso dadka waxyeelada tirsanayana waxaan ugu nasteexaynaya inay dadka saamaxaan wal aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin saxaabi baa jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid ah qofka ugu horeeya inuu soo masaajidka ugu soo horgala وأهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي صوق له مالين كلا النبي صلى الله عليه وسلم سجي بصوق له مالين صدحات صحابي قلفتي سون بصوق له أرنتي مركي يعني وحين نقطي وحاد عجيبة بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسكت بتكتي ونين ولي من ما أرتريمي وأنا قاعد بالله أقولن إلهي وفضل جاي ديرات كايا بش وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرنتي صحابي بل أرنت نوح كهلي أيان كد يعني ogaanaya uu hooyday uu aagay cibaado badan ku muusan arag cibaado badan oo ma aragtay ku muusan oo dheeri ah kadib uu weydiiyay arinka wuxuu fariistay inuu yahay habeenkii ma seexdo ilaa aan iska saamaxo ilaahay khalqigiisa oo dhan aan saamaxo ma seexdo qalbigaaga oo nadiif ah waa waxyaalaha jannada lagu galo qof qalbigiisu wax ku jira jannada ma galo Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin إخوانا على سرر متقابلين dadka jannada galaya in adduunka isku soo saamixin marka jannada la galinayo ilaahay jannada ma galiyo ilaa uu qalbigooda ka saara naxligii iyo xumaantii ay soo hayeen hadii kale jannada lafteeda fawda ka dhalanaysa oo dadkii wada dhaadhacaan iyagoo isku raran oo is wada haysta marka ilaahay wuxuu leeyahay wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin إخوانا على سرر متقابلين iyagoo walaala waxba isu haynin ayaan jannada galinaya wixii qalbigooda ku jiray ayaa ka saara marka jannada marka halka lagaaga saarayo de abaal malihid laakiin maanta inaad adu iska saarto ayaad abaal iyo ajriba ku leedahay walaalkaaga muslimka aad saamaxdo waxaan cod dheer ku leeyahay ilaahay suu xanuunka inooga ilaaliyo mashaakilkaana inooga ilaaliyo aan ilaahay u toobad keenno aan ilaahay dambi dhaaf weydiisano aan sadaqad la baxno aan isa saamaxno
aan isu celinno madaalimtii iyo waxaynu kala haynay fajazaakum allah khayr sadaqadana aan bixino mashruuca jaamacati alqur'aani alcadiim aanu kacno waa يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم حرف كستو قرآن كريم كأه وحسنة والحسنة بعشر أمثالها توم بالوقفا قف كستو قرآن كهلك كبرته وحديق والد كإمارة أجر أسعله أيون نقونا يا إله حنبرينا جل جلاله دعاء إنا بدينه وإله أنبرنا الربا إله حنبرينا إنه بلايا إنا بالمريو كوي أكع خير كاس علماء إنه ودنك هذا الشيء وحكو درس إله إنا جل جلاله وأدمهت سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.